السلام عليكم أصحابتي قروح ضبضن لي وإن السلامي حلا يكون تهيبي وناكسن حلي دونتها هاتي دادكو كالي حلي دوينهين markasta waxaan jeclahay inuu soo daayo ducooyinka qalbigeena u fiican yihiin nolosheena u fiican yihiin wax walba u fiican yihiin ducooyinku sidaba ducooyinka markaad laasimtid laba qof aad kala noqonaysaa yacni qofka aan ducooyinka laasimin iyo qofkan ducooyinka aan garanayn kala laba qof bay yihiin ducooyinkana way fiican yihiin maasha Allah hadayalsan yacni wax yar oo dheelsan wax yar oo yariisa ha ka soo qaaday dadka badanaa ducooyinka laasimay hadaa ma aragtid dhageysatid ama aad maqashid dadkaas maba gaari kartid hal mar marka kuwaas Allah inaga dhaw kuwa ducooyinka laasima kuwa ducooyinka aad sideedaba hadaa rabtid ducadaada in la aqbalo ama ma aragtay ay ku socoto oo ducadaada ducad ajiib ay ka noqoto yaqiin la imo يعني يقينتنا وقلب السليم هدي قلب سليم لا تمادد أو نظيفة يعني قلبي يقين أما السليم وحنا بدأ على وضع يعني إن ما عرفتي قلبي جاجو وحكتشران أما ما عرفتي وحكب وحنا أما نظيفة هاين أما مركه قلبي جاجا نظيف كصادق يا نظيف كصادق سا الله الرحمن كابا نظيف كصادق سينا كبردد إن ما عرفتي إلهي ducadaada aad afka saarto u ka ajiibo marka qalbigaaga yaqiin iyo mid saliima iyo mid wax ku jirin ka dhig sidoo kale Ilaahay wuxuu leeyahay la taqnadu min rahmatillah inna allaha yaghfiru ad-dunuba jamii'an innahu ghafurur rahiim يعني هكقوسن رحمة إلهي بالقوليه هي مر والبا كقوسن لا وامد رحمة مركز رحمة إلهي هكقوسن يعني دو حاتشرة ده ما أنت دعستي بريا دعستي سنة كهرة دعستي ما لا أقبل يو دعاء سبحانه سماها مركا لا تقنطوا من رحمة الله أساس إلهي لو يرح هكقوسننا دعاء بإلهي إليه كقصنا رحمة إلهي يعني آيادنا وحكو قلنا سهرج آذو في عمي قلنا آذو ما عرفت يعني سلا أرمى دعاء لما أقبلين ولا أقبل آذو إسلا والله مركا سورة وحكو جرتها سورة السمر بيكو جرتها مركا أخرت وليه إلهي سوليه لا تغنضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو غفور رحيم مركو ليه هاي waxaa ku galaysaa ahamiyad ama jacayl dhab ku galaya soo yaqiin la imo yaqiinta waxa la dhahaa sidaas qalbi saliim inaad la timaadid qalbi saafi inaad la timaadid inaadan maaragtay qof dad kale qalbiga wax ugu haya ama qalbigaaga xumaan ay ka buuxdo san qalbigaas ahayn taas ayaa yaqiin la dhahaa sidoo kale hadana dadka qaar wallahi waxa arkaysaa iyagoo ku dhahaya waan duceystay ducadeyda ma la aqbalin waan talo ma la aqbalaya talow saa ma noqonaysaa talow kaas ma noqonaysaa ducadeyda ma laga yaabaa nigada ducada hadii la doono la ajiib may oo xilligaas aad duceystay ilaahay isaga suuratu al-baqara wuxuu ku leeyahay وإذا سأل عبادي عني قريب إني أجيب دعوة الداعي يعني دعين مركا أخرستد آيادا دب أوئق يعني ما بأباهند بين سؤال شاي سويديست مالا إيقا أقباليا إلهي ما إمقليا إلهي ما إيقا أتشيبيا وحاسد ما بأباهند دب وحاوئك سورة البقرة وإذا سأل عبادي عني قريب إلهي وليه يعني إلهي إساقا إنو جوابي نوت بالآذن إنو جوابي أساقا إنو جوابي آيادا سنو جوابي soo marna ha ka biqin inaan laga aqbalin ducadaada marnaba iyo maskaxaada soo galin ducada ma la ajiibay lama aqbalin miya ma socon miya marka lacalla haday ducadaada degdeg kugu iman weydana ducada laba u qabsantaa mid Ilaahay ku dib dhigo iyo mid shirkaaga xijaabo
soo marna waxa ka shalaynin inaad ducaa ku akhrisay ama ducaad ku celisay ama yaqiinteeda ama qalbi saliima aad la timi inay ma aragtay meel xun ka marto inay meel sideedaba ducooyinku waa wax saa u duceysanaysa waxaa laga yaabaaba janno inaad ku gashid laga yaabaa maaha yacni ducooyinka janno ayaa lagu galaa janno ayay ku horseedayaan yacni marnaba maaragtay ducooyinka faa'iido la-aan ma leh mar waa duceysani jannaa ku geli mar waa duceysani ilaahay baa ku ajiibay mar waa duceysani sharti kaa xijaabay soo haddiiba ducooyinka saas oo dhan macnahaas oo dhan ay noo leeyihiin ama ilaahay uu fursadaas oo dhan ba ina siiyey soo ma wacna inayn mar walba ducooyin laasino ama ducooyinku way fara badan yihiin inaa hal duco intaa laasintid aroortii iyo galabtii iyo aroortii iyo galabtii aan ku celcelino maadaama saas oo dhan ay faa'iido u leeyihiin haddaad doontid waxaa laga yaabaa bini'aadan inaad iska tahay oo mashquul badan tahay dadka bini'aadanka way iska mashquul badan yihiin moogta wax ay ku mashquulsan yihiin maba garano wallaahi alcadiim yacni wax in ku mashquulsannahay run ahaantii ma garanano soo iskaba mashquulsano laakiin ducadan ku celi maanta waxaynoo wadaa ducada oo aad iyo aad u fiican oo magaca ilaahay xayo qayuumka uu ku dhex jiro yacni ducooyinkan haddaa aragti xayo qayuum hadduu ku jiro yacni waa magaca ilaahay magacyada ugu weyn oo ugu qiimaha badan soo ducadan mar walbaad rabtid inaad guuleysatid ama guul aad rajeynaysid ku celceli insha allah waa ku faa'iidaysaa ducooyinkan aan xifdino aan ku dadaalno kuwii ina anfacana allah inooga dhigo kuwii ina anfaca ee darajo ku helan allah inooga dhigo ducadan ku celceliya fiidowga hadduu soo gaadho fadlan hore u sii wad yacni ha ilaawina subscribe iyo share noo sameysid insha allah kulligiin aan soo duceyno ducadan akhrista insha allah ducadan akhriso oo waxaad tiraahaa yaa حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلا نفسي ذرفت عيني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي ذرفت عيني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلا نفسي ذرفت عيني يعني والله ducadan marka aad ku celcelisid ama xifdisid ama meel aad ku qorisid kaliya ayaa macnaheeda fahmi kartaa ama culays ku saaran aa akhrisatay markaas ayaa qiimaheeda ogaan kartaa xilli kale ma ogaan kartid yani haddaa intaa maalin akhrisid ama iska adoo iska ciyaari iska akhrisid iska dhaaftid midhaheeda ma arkisid laakiin waxaa midhaheeda arkaysaa markaa yaqiin alla timaadid oo ku celcelisid insha allah waxaan u maleynayaa ducadan aroor iyo galabba waan akhristaa waayo de waxaadan ku faa'iidin amaba ka hadli kartid ama ma soo deyn kartid waxaadan wax ka arkin marka ku celi insha allah